laascaano marka aan dhanka koonfur galbeed ka aadnay waxa aan cagta saaray wado rafa waa duhur cirku daruuro leeyahay dhulkuse waa diiran yahay in doora jidkan waxaa loo maraa deegaanka Kalabayr oo 32 kiiloomitir u jira caasimadda gobolka Sool inkastoo wadadan laga duway meelihii halista ku ahaa socodka gaadiidka togan gubadle waxa uu ku yahay caqabad waliba xilli roobaadka oo uu hakad geliyo socotada waxaa laga bilaabaa halkan buuro yaryar oo la baxaadegayo 3 kiiloomitir markaan soconay ayaan gaaray wadadan dadka deegaanku wada jir ku wajahay jidka halka maraya waxa la rabaa in laga tuuro karintan afyar lagu magacaabo waa halka magaaladu ka dhowdahay marka aan marayno laascaano waxa ay jirtaa 7 kiiloomitir goobtan ayay ka bilaabanaysaa wado 4 kiiloomitir ah oo inta la simay jay la saaray waa buuro la kala dhambalay iyo buundooyin la buuxiyay inkastoo hadda shaqada halka ka socota naashinash tahay waxa jirtay maalin bilow adag ah isku tagay riixa shan ku qabto shan gaasinti leegi muuqaalkan waxaan nala wadaagay shirkadda wadada dhisaysa oo aan codkan iyadana kaga duubnay magaaladii aanu ka nimi waan ognahay dawladda Soomaaliyeed wadada afgooyay wada dawladda qadarna way caawinaysaa turkuna waa wada welina waa socotaa waa ogtihiin waad garan kartaan dad masaakiina oo tuulo degan oo aan hanti badan haysan itaalkooda 4 kiiloomitir ay ku itaaleen waxa uu muuqataa wax weyn inay tahay waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtay iyo meel kasta ay joogtaba in laga soo caawiyo hadii Ilaahay ma wadada shaqo sanad socotay inkastoo sahan ku horeeyay waxa ku baxay lacag gaaraysa $470,000 bilowga waxa lahaa bulshada deegaanka oo jaaliyadu u heliso waxaana gacan ku siiyay hay'ado qalaad 7 kiiloomitir baa caqabad noqday 4 kiiloomitir oo kamid ah ayaa mashruuca ugu adag ee wax ka qabadka ee jaygaas ee hadda aynu laamiga ku marayno ka dhignay intii kalena waa u soconaa meel kasta waa u maartay waa u qayladhaan iyo bariyo tag baanu u nahay in wax nagala qabto buuraha saa u adag iyo culayska iyo cagaftaas oo iyana hadeerna noo diyaara inaanu gelino ayaan doonaynaa in wax nagala qabto dawlad iyo hay'ad iyo shicib iyo ganacsato cida u badan ee aanu halkan baaqa iyo fariinta uga dareynaa waa ganacsatada deegaanka si ay ugu kala dhaqaale badan yihiin buurtan cusbaaley waxa ku eg jidka intiisa la garaacay ee labada haada waa halka kala celisa biyaha hawdka iyo nugaal hadda waxaan galay dhulka biyaha ka jaba ay u dhacaan hawd waa dooxooyin carrocad ah casar ayaanu soo gaaray Kalabayr magaalo magaca kula baxday wadooyin badan oo u kala jahaysta deegaamada hareeraha ka xiga waa barwaaqo sooran bay ahaan jirtay dal wacan buu ahaan jiray waa wanaagsan yahay dal bay leedahay dooxooyin bay leedahay ay bay leedahay dugsi bay leedahay nuug wacan bay leedahay taariikhdooduna waa 60kii malaha ceel jira ah iyo rigtona baraagaha ka qodan magaaladan waxa biyaha macaan looga daabulaa laascaanood midaas ayaa keentay in dadka deegaanku biyo yaraan ka cawdaan tanka biyaha meesha baraaga laga qoday baraagna waa taqaano waa xaan oo kale webi male eel durdurana male eel ka samaysan arlada kale oo sida nugaasho kale male baahida biyuhu way badan yihiin boqolkiiba 99 badan yihiin ayuu saas biyaha waxa ku noomsan laascaanood magaalada la yiraahdo iyo dadka islaamka diinoo yimaado soo guura waxa laga yaabaa in jiilaalkii balgaaleen iska dhamaadaan biyuhu waa kuwa baahida waxbarashada deegaankan waxa ka jira dugsi sare iyo mid dhexe iminkana dhismaha socda waxa ku talagal ku yahay in laga dhigo goob ardaydu wax lagu baro ayna ku hoydaan dugsiyada oo kale ma laha wax protection ah ama dayra waa baahiyaha la dareemayo waxa arkaysaa goob waxbarasho oo bilaa dayra ama bilaa difaaca marka dugsiyadaas waxa ka jira baahiyo xagga deyrka taasna waa baahiyaha inoo muuqda cusbitaalkan Kalabayr waxa hoos yimaada 9 tuulo sida uu noo sheegay dhakhtarka madaxda ka ah waxaana jira baahiyo wali u baahan in la daboolo baahida ugu weyn ee ka jirta deegaankan ama cusbitaalkan waxa weeye doorkii hay'aduhu way ka maqan yihiin cusbitaalka inta ugu sii weyn waxa weeye deegaanku wuxuu ugu baahan yahay baahida ugu weyn waxa weeye hooyada iyo dhallaanka inuu helo qaliimadii kala duwanaa oo laga furo maadaama ay khatarta ugu badan ka dhacdo hooyada iyo isku dhimata ama wax weeye dhiig baxda ama dhiig shubis oo kale u baahan
runtii baahi weyn ayaa ka jirta deegaankan. deegaan dhismihiisu siyaadayo waxaa la koraya ganacsiga 2 bilood ka hor waxaa maaro loo helay in guryaha dhismaya albaabkooda laga doono lascano markii la furay warshadan soo saarta. alxamdulilah intaa aanu hadda ay furnay 2 bilood waanu ka kaaftoonnay inaanu lascanood adeega ka doonano wax kasta haddeer waanu diyaarinaa halkaanu ku diyaarinaa magaaladuna waxay u baahan tahay horumar. inkastoo adeegyada asaasiga ah ee bulshadu wadar u wadaagto wax ka dhiman yihiin dhammaan deegaankan haddana fariintu waa wadada oo furo u ah fursado kale. wada la'aanta imikana hayso un baa noogu dhib badan waayo waxaanu mari jirnay meel khatar oo boholaa oo buura ah oo haddii roobdo umulaha iyagoo foolanaya haddii la qaado jidka biyuhu aan la mari karin oo ay halkaa ku umul raacaan baa jirtay. waxaa jirtay haddii qof nabar soo gaadho la qaado jidkii aan la mari karayn haddii biyo yimaadaan laakiin haddeer waddada aanu helay haddii ay hagaagto waa meel la isku hubo adag oo dee baabuurtii marayso. marka waxaan adduunweynaha ka codsanaynaya ummadda islaamka iyo dadka deeqaha bixiye iyo dadka dowladaha iyo maamullo iyo wax kasta anuma kala jecel anu jinis qofkii wax kula baxayn waddada reer kala baydhaana lagu caawiyo. maxamed xasan dhalo warbaahinta Daljir Garow.